tan wuxuu ka bilaabanaya school maanta maandhay ayaa lahaa macallimada Mr. Wallace ayaa lahaa wiilkan Dani ayaa lahaa wiilkan xisaab waxaa lagu xiray 2+2 waxaa la meeqaaway 4 meesha la reebay 22 ayuu dhahay marka waa laga qaldo tahay etis ay laga saar macallimada ayaa badda sida cunday yar faqad sida wax faazin leed oo waxyaabo ay la yaabada waxa way waata wiilkii warqadu taysaday waad F-an u qoran F-na waxa way inuu maado walba ku dhacay gaar ahaan xisaabta inuu aad u xun yahay uu liito marka macallimadan cunugan ay la yaabantahay inuu yahay ninka xisaabta u yaqaan caalamka 2+2 misaawiye 22 ay mar walba ku adkeysanaya waatan macallimad waxa la yaabaa inuu yahay ninka jeniga oo xisaabta u dheer caalamka inuu yahay inay wax ka qaldan yihiin ilaa had macallimada la yaabantahay wiilka wax sita ilaa hadda macallimadan wax ay sameysay sharraasatay mardan waxay isku dayaysaa inay macalinka wiilkan yar inay wax fahansiiso ee ka dhaarayso laba markuu dar inay afar tahay ilaa hadda wiilkan wuxuu ku adkeysanayaa in ay tahay 22 ilaa hadda macallimadan way yaaban tahay ayuu martay wiilkii marda macallimada waxay tusinaysaa qalimo ay tusinaysaa inta afar qalin ay soo qabanaysaa qalimada meeqa waay meesha la rabay inay afar u dhaho 22 ayuu dhahayaa wili wuu ku adkeysanayaa macallimada way yaaban tahay wiilkan asayna go'aan jaalaya been inta waa daybulo umleena daybulo bahasha ayuu tuuray وعرّ معلم جويل يرى وعرّ معلومات اللي هذا يا بطة إذا واحد أي سما يسأي كير لا ستاين ويل كير أو فاقد كير أو معلومات اللبات وثلاثة معلومات وحاسب بعضي ويل واردين تساي حاسب بعضي سيقولوا هذا عنده جود حالة دي سمر تسوف ريس لبيسي كدي بحاول شكل سي عنده جود حالة ده ماشوا مرايو عنده جود إنه في عناية لكن حسابته وتأدب جهاي مرت أساس تختار إنه إذا الدلالة دون أي واحد لا إنه تو marka waxay weydiiseen hada 2+2 marka la isku daro oo la weydiyo 22 ayuu leeyahay ilaa hadda markaas macalimiinta waalidiintu waxay leeyihiin wiilkeena ma qaldano 2+2 waa 22 adaa qaldan macalimiinta adaa qaldan ilaa macalimiinta ku tartan hore adaa qaldan adaa ibartaada inta adaa xisaab aqaanay leeyihiin waxa lagu keenaa marayna waxa lagu keenaa qaraabo ahaan lagu keenaa meeshan afar qabiil lagu keenaa leeyihiin wiishi macalimiinta adaa ahayn ida macalimiinta ayaa banta waxay leedahay labadan waalidiin ma taqaldina leedahay wiilkii oo la yaabee wata day wiilkan aabaheed wiilka aabis buu leeyahay adiga wax taqaldan wiilkeena ha caayna ma caan karto wiilkeena waa nin ardayna caadeen leeyna xisaabtan anta ku dhalay leeyeen way samaanayaan macallimada yaabad ma ya saas la jiraan wiilkiina waan dadaalay waxa barmarada maalinta maxkamadda ayaa keenay maxkamadda waxay go'aamisay inay wiilka ay cansuurida ku dhacday inay alaabteeda arusto ay iskuul dhanka baxdo maalin maxkamadda iyada gurigeeda fadhido ay dhalada telefishinka daawanaysaa in ay dad macallimiin ah su'aalo professor la weydiinay 2+2 ay dhahay 22 macallimadu ay yaabantiidan war dadka maxaa ka qaldan dadkan bool ma ka maqan bisala bool ka maqan macallimadu ilaa hadda isla yaabantay ilaa had macallimadu yaabantahay 2+2 afar 22 maalinta sabtida marka macallimadu waxay rabtay inay iskuul soo boqoto si ay alaabteeda u aruursato ay wixii waxyaabo ka dhiman laakiin journalistiyaal iyo wariyaal ay meesha joogeen kadib macallimadu si ay su'aal weydiiyaan marka su'aal way fariisinayaan su'aal ay weydiinayaan marka macalinka waxay college macna iskuulku u weynay kadib wuxuu leeyahay maanta macallimad baa daayma diin ay maateen lacagteeda 2 bilood u dambeysay ayaa la siinayaa 2 dirsto waa $4,000 ilaa 2 bilood lacagtooda $4,000 ka marqaad ka ahada wata waan siiyay marka macallimad waxa leedahay maya 2 dirsto waa $22,000 ka raaway maxaa si ka qaldan leedahay qara meesha macalinku waa tan uu yaaban yahay masti mar journalist waxay leeyihiin adaa qaldan leeyihiin 22 macallimad uu leedahay si